Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada saaxiibayaal. Cashirkeeni ugu horeeyay aan qaadan doono koorska QuickBooks-ka. Insha Allah maanta cashirkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa sidii aad ula soo degi lahayd software-ka setup-kiisa isla markaasina aad ugu install garan lahayd computer-kaaga. Markii aad koorskan aan qaadanayso waxaan ognahay koorskan inuu yahay course oo practice ah, yacni shaqo gacanta laga qabanayo. Ardayga haddii uusan haysanin software-kii uu wax ku qaban lahaa wax ma soconayaan. Haddii aad software-kan aad haysato way fiican tahay, laakiin sidoo kale waxaa jiro arday oo aanan haysan software-kan oo u baahan in ay la soo degaan. Marka maanta waxaa idin bari doonaa sidii aad u soo degsan lahayd software-kan isla markaasina aad ugu shuban lahayd computer-kaaga. Sidaan ogsoonnahay QuickBooks-ka laba ayuu u qaybsamaa. Mid waa online oo xogtaada computer oo meelahaas yaala lagu keedinayaa markaad dhamayso xogtaada. Yani online waa waxaa ka maamuli kartaa adigu xaafadaada joogto ayaa xogtaada kala socon kartaa. kan kalena waxay tahay mid loo yaqaano desktop QuickBooks. kaasina xogtaada computer-kaaga lagu keedinaa, computer kale ma ka isticmaali karto. Computer-kii ay ku jirto xogtaas bis ayaa ka isticmaali kartaa. Haddii ay xogtaas kaa delete muddo ama computer-ka virus kaaga dhacay, xogtaada meesha ayay ku dhamaanaysaa. Midka online-ka ah bishii lacag ayaa la dhiibaa, midka offline-kana hal mar bis ayaa la gataa. Laakiinse maanta waxaan ku bari doonaa sidii aad qaab free ah aad ugu soo degi lahayd software-ka. Marka waxaa idin soo dhigi doonaa linka description-ka idin soo dhigi doonaa. Linkaas markaa ku dhufato software-ka si ay u soo download garayso anaga ku tusi doono. Almost waa 700 ilaa 800 oo MB cabirkiisa. Waa aad u yar yahay 1 GB xataa ma dhamo. Markii aad soo degsatidna sidii aad u install gareyd anaga ku tusi doono. Yaa marka ku soo dhawaada Akademiyada Samrimi. Okay, linka aan ku dhigi doonaa qaybta description videogan ama haddii aad koorso iska diiwaan geliso number WhatsApp-ka aan kugu soo diri doonaa linkii markaa computer-kaaga ku furaysaa. Markaa ku furtid page-kan aan kugu soo bixi doono. Page-kan markuu kugu soo baxo file-kaas QuickBooks ay qoran tahay right click ku siinaysaa, download aad ku dhufanaysaa. Download markaa ku dhufato oo ku soo download gareysmaa. Hadda aniga computer-kiga waa uu ku jiraa mobile inaan soo download gareysto. Marka adiga laakiin soo download gareyso almost 800 oo MB waay. Markaa soo download gareysato waxaad tagaysaa file-ka waa file-kii aan ku jiro setup-ka laakiin qaab oo zip ah ku jira. Marka right click ku siinaysaa extract files aad ku dhufanaysaa. Kadib okay aad leedahay, password ayuu ku weydiin doonaa. Password-ka anaga ku soo diri doono. Okay aad leedahay. Marka okay aad dhahdo aan password-ka waxaan ku dhigi doonaa qaybta description-ka. Okay. Markii aad intaas aad samayso wax yar wareegsanaya, wax yar sugaysaa. Kadib laba file ayuu noqon doonaa. File ku koreeya ku dhufanaysaa installer-ka. Kadib right click aad siinaysaa. Run as administrator ku soo dhufanaysaa. Markii uu wareegsan doonaan muuqaalku waan buubsiyay. Marka yes to all aad dhahaysaa. Yes to all markaa dhahdo weli waa uu sii wareegsan doonaa. Marka waqti aad siinaysaa ha degdegin. Aan muuqaalkaani waan buubsiyay. Haddeertaan waxa uu ku weydiin doonaa license number-ka iyo product number-ka. Waxaad tagaysaa folder-kii markii uu kugu soo degayay. Folder-ka waxaa kula socda key meel ku qoran tahay right click si waxaad noo soo koobiyeysaa license number-ka noo soo koobiyeysaa right click copy. Kadibna setup-ka imaanayna meesha license number ay ku qoran tahay pasta ku leenahay. Haddana waan naqanaynaa markii aan naqano waxaa soo koobiyin doonaa product number copy aad leenahay. Markaas haddana pasta inta ku soo leenahay. Kadib waxaa leenahay next. Next markaa dhahdo weli setup-ka installing-kiisa ayuu wadanayaa. Waqti badan ayay qaadanaysaa marka iska dul qaado. Aan muuqaalka waa buubsiyay. Okay, haddeertaan waxaan u dhamaan installation-ki. Markii waa iska xiraysaa software-ka. Markii aad iska xirto installation-ka waxaa ku soo noqonaysaa folder-ka QuickBooks-ka. Kadib right click aad ku siinaysaa QuickBooks installation files aad ku dhufan doontaa. Kadib labadaas file aad soo koobiyin doontaa. Okay, highlight saar. Marka highlight aad saarto right click copy soo dhaw. Okay, markaa soo koobiyeysato waxaa u imaanaysaa Windows-kaaga ama local files-ka. Kadib waxaa ku soo dhufan doontaa program files 86. waxaa ku soo dhufan doontaa Intuit markaa ku soo dhufato waxaa ku soo dhufan doontaa QuickBooks ugu koreeyo. Meeshaana pasta aad ku leedahay marka. Okay, markaa ku dhufato meel banaan ay imaanaysaa pasta aad leedahay. Kadib waxaan ku leeyahay replace. Yes, replace aad leedahay. Kadib waxaan sii leedahay continue. Marka intaas aad samayso
waxaa soo kacsanaysaa marka quick book soo kacsanaysaa. waa kaasaa quick bookii asigoo nadiif ku ah. soo hadda kambini waxba nooma samaysno, kambini samaysa uu leeyahay. cashirkeen labaad kusoo qaadan doonaa insha allah sidaa kambini aan u samaysan lahayn. marka waa mahadsantihiin. okay, sidaasi waxaa noogu dhamaaday setupkii aan rabnay inaan ku sameyno quick bookiska. marka aad iyo aad u mahadsantihiin. fadlan haddii aad muuqaalkaa dhamaysatay waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan aan like saarto. waa cabdibaasit xasan nuur oo idin leh adoo dhaxal reebi kara waa noqon inta aala tabin. subxaana rabbika rabbi lcizati camaa yasifuuna wasalaamun cala almursaliina walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.